bismillah maanta ay taariikhdu tahay 20 bisha Febraayo 2020 anigoo ah Maxamed Tahliil Maxamed aasaasay shirkadii Forex 252 kuna taalay magaalada Muqdisho lambar 4 gaar ahaan lambar 4 waxaan rabaa inaan halkaan uga cadeeyo bulshada Soomaaliyeed iyo macaamiisha shirkadda in ay qasaarisay lacagtii shirkadda u haysay macaamiisheeda taasi oo dhan 157,600 iyo guud ahaan dakhliga shirkadda kaasi oo ahaa lacag dhan $92,000 si aan u cadeyno arrintan waxaan macaamiisha shirkadda iyo bulshada Soomaaliyeed la wadaagaynaa si aan u cadeyno arrintan waxaan macaamiisha shirkadda iyo bulshada Soomaaliyeed la wadaagayaa akoonnada ay ku qasaartay lacagtaas oo kala ahaa sida tan akoon number 1 15 3 waxaa ku qasaartay lacag dhan 69,685.2 si aad marka u aragtaan lacagta in halka ku qasaartay intifoorka akoonada waa kuwaana akoonkan marka lambarkiisa raadinaya waxa la dhahaa waa kana akoonkan waxa ku qasaartay taariikhdu markay ahayd 19 Febraayo 2020 saa u jeedaan waxa ku qasaartay lacag dhan 69,685.2 sida halkaas ku cad oo halkaas ku qoran akoonka numberkiisa aad rabtaan inaad si fiican u ogaataan waxa waaye akoon numberkan waxa waaye 15 waxaan magac ku qoran uu yahay Maxamed Tahliil Maxamed oo ah aniga number 2 waa ka baxaynaa kan number 2 akoon number 45 34 898 waxaa ku qasaartay $82,480 $82,480.93 si aad marka u xaqiiqsataan asagana in lacagtaas ku qasaartay akoonkan numberkiisa waxa waaye 45 34 898 magaca ku qoran waa Cali Cabdiqaadir Xasan oo aan walaalkay akoon numberkaani halkaas ku yaala waa kaas halkaas ka muuqda asoo taleefanka geeskiisa waxaana ku qasaartay $82,480 si ay u cadeyno marka lacagta meesha ku qasaartay halkan waxa ku qoran waxaan leenahay 19 asagana maalinta lacagtu qasaartay weeye 19 marka dhacday February $82,000 $480.5 sida halkaas ku qoran intaas ku qasaartay akoonkan akoon number 3 45 30 348 waxaa ku qasaartay $33,726.86 si aan akoonkan u cadeyno asagana waa soo qaadayna waa kana qasaarihiisa asagana halkaana tagaynaa 19 tag 19 asagana waxaa ku qasaartay $33,726.19 akoonadan inay real yihiin oo waxa aan sheegayna ay run yihiin waxay ku caddahay halkaas ku cadda waa kaas real meeshaas ku qoran lacagta akoon numberkana waa kuwaasa intaas ku qasaartay asagana number 4 akoon number 45 27 556 waxaa ku qasaartay $20,421 akoonkaas asagana waa kana inuu real yahay asagana halkaas ay ka caddahay hadda waxaa ku jirto 1.7 kaasa ku jirto real waa kaasa Maxamed Tahliil waa kaasa magaciga ku qoran asagana lambarkiisa waa kaasa halkaas ka xaqiiqsan kartaan iyo lambarkaas oo lambar 4 si isugu yihiin way u jeedaan 20,421 waa ku gubatay waana halkaana ka soo cadeynaa hadda akoonkan asagana halkaas dhag leenahay asagana waa kaasa 20,421 ku gubatay oo cadeynteeda waa taas halkaas suulka aan ku hayo akoon number 5 waxa waaye 45 25 544 waxaa ku qasaartay asagana 24,801.9 akoonka numberkiisa marka asagana waxa waaye
waa kana asagana real inuu yahay waa kaasa ninka Cali Cabdiqaadir Xasan la dhahaa waa ninka walaalkay oo lacagtiisa qasaariyay asagana halkaas ku qoran tahay halkaan aan taabanaa marka asagana waa fiirina asagana waxa ku qasaartay sida aan idin sheegay oo halkaan ku qoray 24,801 halkaana 24,801 ku qoran marka asagana waa kaasa account number 6 15 24 297 waxa ku qasaartay 19,159 dollar dhibic 30 asagana account number ka raadinaa sorry account number 97 udambeeyo soo 97 inta ka raadinaya raal ahaada waa kana 97 asagana waxa ku qasaartay lacag dhan 19,159.36 oo lacagta halkaas ku qoran oo account number 6 lixdaas account guud ahaan waa lacagta kor ku qoran ah in 92 ay shirkadu leedahay kun iyo 157,000 ee dadka shacabka ee macaamiisha shirkadda ay lahaayeen lixdaas account ay guud ahaan ku gubteen sidoo kale waxaan macaamiisheena sharafta leh aan ka codsanayaa si qaas ah inay caafiyaan kuna samraan qadarta rabbi qalbigoodana qaboojiyaan waxaan sidoo kale rabaa inaan halkaan uga digo bulshada Soomaaliyeed ee lacagahooda shirkadaha Forex ugu jiraan iyo milkiilayaasha shirkadahaas ee Forex iyo sidoo kale qof kasta oo raba hadda inuu shirkad furto ama maal gashado shirkadaha Forex waxaan rabaa inay kuwaana qaataan dhibaatadii iyo musiibada aniga ku dhacday waa mahadsantihiin soo dhawaada wabillahi tawfiiq